السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابta كريبتو kusoo dhawaada channelka Omaya Exchange iyo video cusub maanta waxaan ka hadli doonaa hadduu la yidhaahdo sida hore ula socoteenba updateskii ku saabsanaa cryptocurrencieska iyo sidoo kale suuqan cryptocurrency marketka waxyaabaha ka cusub iyo sidoo kale newskii u dambeeyey ee suuqa ka soo kordhay haddaba haddii videogan uu yahay video ugu horeeyey ee kasoo gaara channelkan Omaya Exchange muuqaalkan like garay sidoo kalena asxaabta danaysa arrimaha cryptocurrencieska dhammaan la wadaag iyo sidoo kale inta aad la wadaagi karto sidoo kalena channelka subscribe garay si aad u hesho warbixino ku saabsan cryptocurrencieska iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriira sidoo kale waxaa channelka ka helaysaa maxaa la yidhahdaa cashiro ku saabsan cryptocurrencieska bilow ilaa dhammaad tutorials iyo sidoo kale waxyaabo badan aa wax ka faa'iidi doonta hadduu la yidhahdo insha allah haddaba aan gudagalno maanta wararkii u dambeeyey ee cryptocurrencieska oo maanta ay tahay 18 bisha February 2025 waxaan rajeynayaa in aad shaashada hadda u jeedin Omaya Exchange wararkay kugu talgashay maanta aan maxaa la yiraahdaa dul marno madaxweynaha Argentina oo dafiray inuu ku lug lahaa shabakada Libra aan war idinkaga siinaa sidoo kale traderska oo si taraysa macnaha u trade gareenayo short selling ama xagga hoose u galaya traderka Solana marka loo fiiriyo sidoo kale asaasaha Libra oo isagana ka jawaabay dhaliilo looga soo jeediyey meme coinyada qaar waxaan ku hormaraynaa warka koowaad oo ah madaxweynaha Argentina oo dafiray maxaa la yiraahdaa inuu ku lug lahaa shabakada Libra sababnahay waxay ahayd coin markaas la soo saaray oo meme coin ah oo maxaa la yiraahdaa loo yaqaano ama ah wax coin oo maxaa la yiraahdaa la soo saaray oo dhawaan maxaa la yiraahdaa scandal ahaan ama fadeexad ku timaadeed haddaba madaxweynaha Argentina oo loo yaqaan Javier Milei ayaa beeniyey eedeymaha la xiriiray inuu xayisiin lacagta digitalka ah ee muranka dhalisay ee Libra loo yaqaan taasoo dhawaan hoos u dhac weyn ku timid taas ee dhibaatada ugu weyn ninka la yiraahdo madaxweynahana marka dadkii buubuunin jiray kamid ahaa marka eedeymo badan loo soo rogay kadib markii uu ku imaaday hoos u dhac weyn haddaba madaxweynaha oo wajahaya dacwado badan oo la xiriira khiyaano iyo sidoo kale codsi ah in xil laga qaadaa soo wajahay sidoo kale wareysi uu bixiyay 17 Febraayo oo shalay ahayd wuxuu ku sheegay inuu isan xayisiinin kaliya ereygaas uu isaga ku dhawaaqay ama ereygaas uu faafinayay niyad wanaagna ay ka ahayd sidoo kale wuxuu xusay in xoogaa niyad wanaag ka ahayd sidoo kale wuxuu qartay in uu baahnaa inuu ka fiirsado oo taxadar dheer muujiyo marka uu taageerayo mashruucyada noocaas oo kale meme coins iska halis badan yihiin qaabkaas ay ula jeednaa warka labaad wuxuu yahay traderska oo maxaa la yiraahdaa trade gareynaya Solana oo short selling bilaabay inay u galaan dareenka maalgashadayaasha ee ku aadan Solana aan noqday maxaa la yiraahdaa mid sii xumaanaya maadaama dad badan ay bilaabeen in ay sharad dhigtaan oo maxaa la yiraahdaa hoos u dhaca qiimaha Solana sababo la xiriira maadaama ogtii midowga Solana mimkooyada intiisa badan iyada la saaraa 80% taasa marka waxay keentay mimkooyada qaar maxaa la fadeexa ka timaaday inuu fadeexa inay bilaawdeen macnaha scandal inay ka dhaceen xogta suuqa marka waxay muujinayaan in isku dheelitirnaanka iibka iyo iibsashada oo loo yaqaano long to short ratio kan xisaabinayo ay hoos u dhacday oo maxaa la yiraahdaa 4 una degtay 2.5 17 Febraayo ilaa la gaaray haddaba shabakada Solana ayaa la kulantay marka eedeymo oo la xiriiro trading oo insider trading ah iyo sidoo kale khasaarooyin ba'an oo soo gaaray maalgashadayaasha yaryar oo lacag badan ay uga dhuntay oo hadda tii ugu dambeysay kale Libra kale waxay lumisay ku dhawaad 4 bilyan ay gaartay market capkeeda ay lumisay macna suuqgeynta ama market capka taasoo marka waxay keentay khasaarahaas weyn iyo fadeexadaas ay la kulantay maxaa la yiraahdaa mimkooyadaas qaar oo Solana saaran waxay keentay qiimaha Solana inuu hoos u dhaco dadka traderskana ay sell ama short selling ay u galaan traders noocaas haddaba warka u dambeeya waxay tahay arinta hadda laga hadlayo oo saddexda warba qosayso ee Libra ninka asaasihiisa soo hadlay oo ka jawaabay dhaliilaha loogu soo jeediyay ee ku aadan mimkooyada Hayden Davis la yiraahdaa ninka hadda ka muuqda sawirkan waaye wuxuu asaasaha mashruuca Libra wuxuu ka jawaabay dhaliilihii oo soo kordhay mar walba asiga la dhaliilay ee ku aadanaa inuu trade gareynayo ama ganacsiga meme coinyada maadaama meme coin samaystay isagu wuxuu sheegay marka in inta badan dadka hadda oo dhaliisha ku wada ama dhibaatada u geysanaya barnaamijkan ay ahaayeen dad laga reebay in fursad loo siiyo inay maxaa la insider ahaan fursad uga helaan oo fursadda oo ganacsiga gudaha ay ka helaan intii la darsayay ama lagu guda jiray maxaa la yiraahdaa wareysiga uu bixinayay isaga haddaba Davis wuxuu ku dhawaaqay ama uu difaacay guuldaradii mashruuciisa isagoo sheegay inuusan guuldareysan kaliya
oo wuxuu ku dooday inaysan ahayn khiyaano balse ay ahayd maxaa la yidhahdaa wax oo khasaare caadi oo imaado mashruuc kastaba inuu khasaari karo macnaha laakiin wax marka hore ay ugu talagalayeen ama rug pull inaysan ahayn marka wuxuu hadalladiisa waxaa kamid ahaa inay dadka dareemayaan xanaaq maxaa yeelay dadka qaar wuxuu ku dhaga hadlaa oo dadka uu sheegaya inay yihiin dad oo fursadaha ganacsiga gudaha insider inay noqdaan loo diiday dadkaasa ku qaraarsan uu ka wadaa macnaha barnaamijkan haddaba wuxuu kusoo gabagabeeyey maxaa sameynaa okay maxaa la sameynaa mashruuca inaa iska joojina ma warka macnaha halkuu yahay haddii saas la sameeyana dee dadkan lacagta ka dhuntay ama dad kale ay lacag sameyn karaan ma jiro lacag say ku helaysiin la taaganya haddaba wararka ugu xiisa badnaa maxaa la yidhahdaa cryptocurrencies-ka maanta saacadihii u dambeeyey laga helay waa kaasa wixii soo kordho update-dan insha Allah wararkan ku saabsan ama si guud cryptocurrencies-ka iyo bitcoin-ka iyo kuwa ugu waaweyn ku saabsan iyadana waa idiin soo gudbin doonaa hadduu alla yidhahdo insha Allah ilaa maanta intana soo gaartay haddaba haddii videoga ilaa inta aad soo dhamaysatay uu channelkana kuu subscribe garaysanayn subscribe saar videogana like garay si uu asxaab badan u gaaro sidoo kale share garay dhammaan platformska kale ku share garay sidoo kalena soo follow garay dhammaan platformska oo my exchange ay ku leedahay dhammaan social media qaybihiisa kala duwan ha noqoto Facebook iyo dhammaan qaybaha kale haddaba intaan war noocan oo kala ama maxaa la yiraahdaa information aan ku kulmi doono aan kan ahayn nabadgelyo